Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Daawadayaal, waxaynu maanta mawduuceena ku soo qaadan doonaa qiso ka mid ah qisooyinka ka dhacay adduunkan aynu maanta joogno. Marwo Caaliya Maxamed waa gabadh u dhalatay dalkaas Ciraaq. Waxa ay shaqaale ka ahayd maktabadda ugu weyn magaalada Basra ee dalkaas Ciraaq 2003, xilligaas oo ay ka jireen dalkaasi dagaallo iyo burburo fara badan. Haddaba waxaa dhacday in ciidamadii Ciraaq ay soo galaan maktabaddii ay Marwo Caaliya shaqaalaha ka ahayd, dabeetana ay korkeeda ka dhigtaan dhufays ay uga gabbadaan diyaaradaha iskagana dhiciyaan. Haddaba marwadan ayaa codsatay in kutubta iyo dokumentariyada iyo muuqaalada qaaliga ah ee maktabadda yaalla in gurigeeda ay u rarto si looga badbaadiyo burburka ay sababi karaan dagaalladu. Nasiib xumo, soo jeedinteedii iyo codsigeediiba waa laga diiday, laakiinse Marwo Caaliya Maxamed waxa ay go'aansatay in ay buugta habeenimo la baxdo oo ay u tahriibiso meel ay ku badbaadaan. Sidii ay Marwo Caaliya sheegtay ayaa dhacday oo maktabaddii waa la burburiyay, laakiin nasiib wanaag Marwo Caaliya waxa ay badbaadisay in ka badan 3,000 oo buug oo dokumentariyo iyo muuqaallo kala duwan oo muhiim ah. Waxaa haddaba dhacday in haweeney qoraa ah oo u dhalatay dalkaasi Ingiriiska laguna magacaabo Chepter Way ayaa markii ay sheekadan Marwo Caaliya maqashay waxa ay qortay buug ay carruurta reer Yurub ugu talo gashay in ay ka bartaan geesinimada iyo muwaadinimada ku jirta sheekada Marwo Caaliya Maxamed, waxayna u bixisay buuggaas The Library of Basra. Kadibna waxaa buugga loo rogay masraxiyad lagu soo bandhigayo dhowr masrax oo caalami ah. Maktabaddii dib baa loo habeeyey, waana la dhisay. Marwo Caaliyana buugaagtii ayay ku soo celisay, waxaana maamule guud looga dhigay oo ka noqotay Marwo Caaliya Maxamed. Haddaba sheekadan, daawade, adigu maxaad ka fahantay? Se maxay kuula muuqataa ujeeddada Marwo Caaliya Maxamed? Waxa ay sheekadani taabanaysaa muwaadinimada dhabta ah ama waajibka saaran qofka dalkiisa jooga hooyo. Haddaba inagu haddii aynu Soomaali nahay, haddii aynu ku dabaqno dhaqankeena keliya, bal waxaad isku daydaa in aad ka dido waddada xashiishka iyo caagadda aad biyaha ka cabto oo aad geyso halka gaadhigu ka qaadayo ama ku habboon.